waxaan warbaahinta ka aragnay fadeexado badan oo ka dhacay dalka Mareykanka gaar ahaan lunsasho iyo musuqmaasuq mashaariicdii loogu talagalay coronaviruska ilmaha yaryar in mataqaanay wax bisil la siiyo bal arrinkaas ka waran qaabka uu dhacay Soomaaliya soo saameyn same time dhibaato badan oo dadka Soomaalida haysata waxaa ka aagiya musuqaas meel kasta oo aragtan musuqmaasuq waxaa mar hadaad gurugto hadaad kismaayo waxa aad u baahan tahay ilaa aad si kale ku hesho ama leeluus ku hesho ama garab ku hesho ama anaa reebel ku hesho cadaalad sax ah wax u shaqeeya Soomaalida ilaahay mabka ugu maaslaan meel walba nasaasi ku jiro programkaas Feeding My Children dadka aniga hay'ad baan lahaa non-profit dadka ugu horeeyay oo ku hoogi lahaa ka mid ah hay'adeeda loo imaado waxaa la yiri waxaan ku qoraynaa 500 oo ciyaal ama 500 oo ciyaal lacagta hay'adda lagu soo qaadaya intaas adin ka faa'iideysa adin intaas ka faa'iideysa qofku marka ma ka fikiraayo sharciga iyo systemka ka fikiraayo wuxuu ka bixiyo business buu arkaya wixiiba business buu arkaya wuxuu ku leeyahay marka dukaamadii aan gadan jirnay isku robada aha alaab soo degtay baaciiniyo adna intaas ka faa'iidana intaas ka faa'iida systemkii America la tagay qofka marka asoo sharci fahansanay oo wixii aan aqoonin ila wadanka shuruuciisa waa shuruuc boolosiyada oo xataa Soomaaliya hadii lagu dhaho shuruuc Soomaaliya akhri yaa fahmi kara qof fahmi kara malaha Soomaalida marka ayagiyo aan aqoonin degdeg ay wixii ku qaleen ayaga marka systemka samaystay iyo non-profit waaye ilmahan waa qoranayna cuntooyinka hooyooyinka waxaan ka sii karnaa ka siinayna laakiin adna intaa ka faa'iida ana intaa ka faa'iida systemka hadii loo fiiriyo waaba illegal laba marka arrinaa jirto meel waxaa dambiga iska leh wadanka ama dowladda Mareykanka ama waxaa iska leh meeshii waxay bixisay qalad meel Soomaalida meel waxay qalad ku leedahay markaas anigu waxaa jiray council aniga aan wax ka faa'iideeyay oo yiraahdo Cultural Ethnic Communities Leadership Council waa council bedelaya shuruucda u degan Department of Human Services u degan bedelay because departmentiga shuruucdooda waxaa la sameeyay aqoonsiyadooda 1960 waagii madowga loo dagaal jiray ayaa la sameeyay right now maadaama dad badan oo luqadda aqoon systemkii aqoon wixii aqoon ay soo galeen shuruucdii anaga baba loo shaqeynayaan dhaqankeena qaar ku soo jeedaan so shuruucdan bedelay naag marka commissionerada ah oo qayb investigation ka socota oo imaatay ana marka commissionerada ku jiro waynoo imaatay waxay tiri waxaan rabaa Saciidi iyo wiil kale meesha joogay labadiina waxaan rabaa inaan la fariisto waxaan garabtaa waxaan rabaa 96 case oo Soomaali ah dhikrowda waxaan rabaa inaad ii sharaxdaan community meesha joogay qaabka ula hadli lahaa xiro oo maxaa u xiraysaa waxay sameeyeen qalad maxaa dhacay ciyaalka imaado meesha lacag baa lagu qaataa oo islaantii 10 ciyaal ah midkiiba kun bekeelisa markii aanu baarnay waxaa ogaanay qalad okay su'aalan ku weydiinaya dadkan dhikrada iska leh oo systemkan iyo waxaan aaneedin qalad waay afar su'aal سؤالك والوحى واي ورقضاها إيه بوليسية الشروع اللي إيدين قرن قلت أف صومالي كنت ترجمتين إلا ما شرعي كنت ترجمان كم ترجمين وحان إيري حفيز كذا أما حفيز كإنفستيجيشن كو ما كشقيان ضد صومالي ولغة يقانا ومدان وحشيك ما يكما شقيان كيس كوغوري يقول ما أوغاتي انت أصو سنكور سو وحان كنا هاي سؤال شو قدام بيسا markii aad baaraysan oo qaladaadkan aad ku hesheen community iyo culimo diinkii meesha deganay dadkii waaweynaa mas'uulka ah inta u yeerteen ma kala tashateen mistakes ka dhacay maya afarta su'aal baa waxaan dhahay commissionerkiina aad ku dacweynayay naagti dagaalkii lagu qaaday aakhirka waa la faa'iideeyay commissioner dhan oo waxay department-ka qaybta haysta waxaa lagu faa'iideeyay dadkan Soomaalida ah mistake ugu horeeyo loo sameeyay waxa waay markii community ugu horeeyay هادي أقول أما ده كيرك أقول شرط أقول أي مستيق سمايان لما قبض هدي الشق في الحيرة لها أنت كلو ببادلي لكن هو حال السوق أنت صومالي رأسو بوليسي سجال إيه 96 سنترس أنت أي مستيق سمايان ولا سوق because إن اللي جليه بني that was a big mistake وصومالي ده يبقى تو improve mistake اللي بعد تطلبات أو عندك مشاكل على الوحاة واي ده كان
sharcigan ani hadda inta ku imaado aan ku dhaho dheekeena furana oo lesson isiiso anu saan raba ugu shaqaysanaya haddaadan shuruuc soo hordhigin mistake labaad oo sameeyana waxa ay shuruucdii oo diyaarsan oo qoran dadkan training bal wasiin taa marka waxay suurto gelisay in case-kii uu mid qofba ani markaan furnay bilaa saa u furtaa ay tus sidee waxaan ugu shaqaysaa alla walaacta adduunka ku jirtay waa ordaayaa wixii baan cirka gelinaya dadka marka inay mistakes kan galaan waxa ahayd waa set up loo sameeyay oo failure loogu talagalay dadka Soomaaliya inagu baabiyo taa waa number 1 qaladka dawladda ay gashay qaladka Soomaalidu gashay waxa waa dad badan oo wax barto aqoon leh ku jira iyagoo og inay qalad sameynayaan ay indhaha ka xirteen because waxa ka soo galaya ka badan so labada dhinacba haddii laakiin markii hore Soomaalidu way baqdaan ma ogi shuruucda ma raacaan way baqaan haddii markii ugu horeysa loo sheegi lahaa mistakes kan haddaa sameysaan ee case ka dhan disclose la dhihi lahaa wax yar gaaladuba they bend taqana bend marka saa wax loo quluuciyo intuusan jabin they bend the law ma jibiyaan laakiin inta ugu badan ee dambiyada ugu badan ee shuruuc lacagta ugu badan ayay dhacaan waliba dadka cadaanka iyagaa naga tuugaysan laakiin wax ma jibiyaan anagu laakiin bas waxoo ka dhexeeya mala iyagu saani u qaluucinayaan saani u haynayaan marka mugdiyo badan aad jiro oo aan la fahmi karin wax qaldayaan anaga laakiin waa qac because ma naqaan wax marka sidoo loo xiriyo ma naqaan so mistakes ka dhacay wuxuu ahaa qaab dawladdu ay sarf uga dhigtay oo markii hore aan laga qaban maanta markii la ogaaday oo meel laga noqdo u jirina is like Soomaali oo dhan baa la qabanaya because mistakes ki daycare-ka wuxuu ku xijiyay home care-ki wuxuu ku xijiyay autistic yani 500 oo program oo kala duwan ayaa kulligood dhib kala jira waayahay dhacdadaasi maxaa laga bartay sideese Soomaaliya sumcadeeda u saameysay sumcadeena way saameysay oo waxay u saameysay program kasta oo hadda anaga micnaan oo noo naqaan lahaa oo la siin lahaa hadda moment la ogaado in Soomaaliya hadda group ma daro in afto even though hatta hadana Soomaaliya rabina rabo in mainstream ka dhigo oo group home oo group self garay qof kasta oo waayeel u jiran oo qabiilada wadanku raba ka soo jeedo yani haddaan madow indhayar u xorba Soomaali momentiga la eegarto wixii liisaan gelinaya dadaa waxay ku jiraan 2 sano iyo 8 bilood oo wali adilay so taa waxa ma lagu diidaa ma lagu dhiin wixii liisaan ku jiraan meel u raacday baaritaan ma wixii liisaan halkaas baa lagu heenaya ko taa marka anaga saameynayno oo keento qofkii xataa ahaana clean oo rabay inuu wax samaysto Soomaali marka lagu ogaado hoos waxa uga qoran calaamadaas saaran soo saameyn ugu yeelay saameynta labaad oo nagu yeeltay waxa waa xitaa hadii aan noo furan yahay ilgaar lagu fiirnayo oo dad loo shaqaalay ma fahmi arrinta kalena waxa waaye maadaama dadkan ay joogaan wadanka dhanba wax 20 sano iyo 30 sano ka yar in ninkii wadanka ku dhashay ee ku barbaaray ee wax ku bartay oo subaxii 9 shaqo galo oo 5 galabtii ka soo baxo oo biilkiisa baxsado adigii 20 sano ka yar joogana 900 oo gurina aan leedahay inta Soomaaliya account kugu jirto is that fair that's the other reason oo anaga ilgaaran loogu arko cadowtinimada lagu sameeyay oo cadownimada dadka ay cadow inoo arkaan waa arrinta kale oo dhibaatada dadka Soomaalida ku